qofka hadduu gacan saar lahaa laakiin caddayn buuxdo markaas qofka lagu qaada aan jirin tuhun u jira si ka baxsan bini'aadanimada ayaa horta loo dhaqmaa qofka waa la jirdilaa koronta lagu qabanaa cidiyaha biinsa loogu qabanaa xaniyaha sidoo kale inta qof bini'aadan ka xanuunsado ayaa ka qabsanaa waxaa waaye musqusha horta kool waa dhibaa waxaa waaye kuleel 24 saac ugu xirnaanaa si cabiida habeenka lala baxaa xilliga iyo qof qawowga biyaha yihiin barafka yihiin qof xabsi ku jiro oo dhibaataysan in islami biyaha lagu shubo la balbilaa la garaaca qofka asoo dembi lahayn ayuu waxaa waaye dembi kale iska sheegana Farxaan Maxamuud Xasan oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Quule Faysal iyo Carab 2010kii ayuu kaga biiray al-shabaab degmada Balad Xaawo ee deegaan ahaan uu ka soo jeedo mucaskarka Harar oo duulaadka ka Diisoor ayuu tababarkiisii ugu horeeyay kula qaatay 900 oo qof oo kale waxaana xilligaasi u soo xiray tababarka horjoogayaal ay kamid ahaayeen Burhaan Commandos Cali Dheere iyo ajnabi u dhashay Suudaan tiro 10 qof ah oo uu ku jiro Farxaan ayaa xilligaasi loo qaatay inay ilaaliyaan goobaha qarsoon ee al-shabaab ku ciqaabaan cidda ay uga qeyl raadinayaan la shaqeynta hay'adaha sirdoonka qaranka iyo ajaanibta kale si gaar ah waxa uu u maamuli jiray xabsiye ku kala yaala Kismaayo Jilib iyo Saakow balquulaha inooga sheekeeyay sida ay ula dhaqmi jireen maxaabiista u gacan gala argagixisada al-shabaab waxaa nin aadan dhigi jiray oo Jilib ugu dilay oo Raalcade waxaa kaloo nin kale la Ismaaciil waxaa loo haystay al-shabaab hanjiri al-shabaab ku baxay xamar iska tagay xamar soo iska socdo Kismaayo iska socdo ayaa la si qabsaday dawladda soo dirsatay la hadii dawladda soo dirsatay Kismaayo u gudbi lahaa soo meeshii al-shabaab joogan soo ma hanjiri walaa waxaa soo habeenaha kamid ah mas'uul bana u dhaay ana waan dhimaa adduunka waa dhaafaa laakiin qiyaamo waxa waaye aan kula baahnaa dambi ana leenaan sheegtaan u dhaay waxaan u sheegtay jirkeyga inuu iyo nabad gal bis dilkan bulsha liisayna waa waxa waaye ana Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kala helnay ayaa waxa waaye aan leenahay intii uu joogay xabsiyada waxaa sidoo kale lala howlgeliyay dhowr jabhadood oo weerar ku qaaday meelaha ay kamid ahaayeen Afmadow Kudhaa Xerakadeemiyo Buula Xaaji Barjaale Harboole Buula Guduud Baarsan Guune oo 3 jeer ah Khadiija Xaaji Buula Xaaji oo dhammaan ka wada tirsan Jubbaland intaas kaliya kuma ekaysan ee waxa uu u tallaabay bilowgii January sanadkan saldhig Mareykanka ay ku leeyihiin Mandabay gobolka Lamu ee waddanka Kenya waa kan Quule oo ka sheekeynaya kaalintii uu ku lahaa weerarkaasi ana waxaan ka qaaday meel la dhaha Hami yaa ka qaaday waxaan geeyay meel la dhaha Tanrifa wiigi Tanrifa oo Jubbasir waxaas magac Swahili lagu dhawaaqay ana ma ka saay marka dhul keemo oo hoodi hayeen meeshan geeyay ana waxaan arkay 30 jirgaan oo ku jirto TMT ku jirto iyo waxaan kale arkay fiilooyin iyo waxaan arkay birooyin oo alxaman ay arkay intaas aan hadda aan ka xasuusta inta arkay waa laakiin aan ragaan soko oo waxa waaye 7 qof ahayn raga xagga 115 qof ahayd ana 7 qof ahayn rag asaga hayna wax ilaa hadda marka aan soo laabtay ma jirin waxay ku maqnaayeen gudaha ku maqnaayeen 7 kanagi wax yar ma ahane 30 soomehen 30 kanaga waana soo Xasan Khaliif Dhagay oo ah horjoogihiisa ayuu ku qanciyay inuu soo guriyo noqdo hoygiisa isaga oo jiraya isa soo dhiibay waxaase xilligaasi la baray Carab sida uu u gudbin karo xogaha ciidamada magaalada siiyay iyo sahminta goobaha halbowlaha oo ah Balad Xaawo markii aan magaalada aan tagay li soo dhaweeyay 3 maalin joogo magaalada waa baxa ehelideen soo salaamay oo ku kooban aan soo salaamay markaan baxay foojinaantida ku baxay foojinaantida aan ku baxaa meesha aan maray inay calaamadasan tahay iyo qaabka iyo qofka aan ku maray dadkaan ku maray nidaamka aan ku maray iyo calaamadasan tahay iyo ciidamada si u kala degan yihiin iyo calaamadasan tahay iyo aaga xaafadda ciidanku ka degan yahay aagu ka degan magaceeda meesha laamig inta u dhow yihiin inta u jiraan barnaamij noocaas horta ayuu hay ciidamada aan muuqanayn ayaa la dheelay ciyaar ismaahis ah si ay kaga guungaaraan dhagartiisa waxaana lagu soo afjaray howlgal uu isaga ka ahaa sahan
maxkamadda ciidamada ayaa lagu wareejiyey qoraallo iyo fariimo uu dhagarqabaha la wadaagay al-shabaab waxayna maxkamadda ciidamada dhegaysatay si kama dambaysa kiiska Farxaan 14 bishan maanta ayaa go'aan laga soo saaray sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka iyo cadeynta laga qoray eedeysanaha taleefanka ee eedeysanaha iyo horjoogihiisa isku dhaafsanayeen fariimaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Farxaan Maxamuud Xasan uu yahay dambiilo galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabillahi tawfiiq Abduqaadir Warbaahinta Qaranka Beled Xaw